waxaan ku sugannahay deegaanka Inamad ee gobolka Galgaduud halkan bishii December ee sanadkii 2018 waxaan ka diyaarinay warbixin la xiriirta dugsigan halkan ku yaala oo ujeedaan oo duruufo ay haystaan dhanka dhibaatooyin markaas haystay ardada iyo meesha ardada markaas ay wax ku baranayeen waxaan idin soo gudbinay oo aad baraha bulshada ku aragteen goob ay ardada fadhiyaan oo ka samaysan dhis isla markaana xilligaas dhibaato ardada ku haysay iyo duruufo kale intaasi ka dheeriya warbixintaasi kadib markii aan gelinay baraha bulshada oo aan u bandhignay dadweynaha waxaa jiray dad jeclaysta inay arintaasi qayb ka qaataan waxaan sameynay akoonkaasi aan ugu talagalnay in dadka muxsiniinta ah ee la baxaya sadaqada isla markaasina doonaya inay dugsigaasi caawiyaan ay lacag wax heli karaan ku soo shubaan inaan maantay wixii lacag ku soo dhacay akoonkaasi aan ku wareejiyo macallin Cabdinuur macallin Xasan oo ah wakiilka dugsiyada arintaasi loogu talagalay waxa dhacday dugsigii ay ardada wax ku baranayeen oo ka samaysanaa iyo geedo la isku geeyay inuu qatar galiyay ardadii quraanka baranaysay oo inuu ku soo dumana ay halis u galeen macallin Cabdinuur wuxuu go'aan ku gaaray sida uu inoo sheegay inuu asagu isxilqaamo oo wixii uu la xiriiri karo la xiriiro kadibna uu badbaadiyo ardada si ay qatar dugsigaasi u galin waxa halkan kaga muuqda dhismo 2 qol oo sar ah oo la bilaabay oo hadda socda oo macallimku uu asagu bilaabay 3 qol dhagaxan dhig karnaa qol waxa jiray hore u dhisnaa laakiin duug ahaa oo asaga ruuxiisu la rabo in dhismuhu uu gaaro iyo 2 qol hadda lagu daray saaka ay halkan soo gaarnay sida ay sheegnaan qidmada lacagta aan wadno ma aha wax dabooli kara baahida halkan ka jirta iyo dhismaha halkan laga wado laakiin macallimku iyo xirta kale ee halkan joogta waxay go'aan ku gaareen in ay iyagu isxilqaamaan oo ay dhagax gadiyaan iyo dhoobo iyo ciid wax heli karaan kadibna ay sii bilaabaan dhismihii ciidii kale ee doonaysa inay caawiso oo ay gacan ka geysato maadaama waxa ay yihiin goob lagu baranayo kalaamka Ilaahayna ay aragto muuqaalkan annaguna waxaan ku talagalnay wixii qidmada ee na soo gaaray dadku ay sadaqada ula baxeen inaan saaka ku wareejino oo aan soo gaarsiino lacagtu waxay ku soo dhacday akoonka ay sameeyeen mu'assasada Al-Ihsan halkaas lacagtu ku soo dhacday waxayna ugu talagalay inay ku caawiyaan waa mu'assas weyn oo lagu talagalay dhammaan dugsiyada oo macallimku wakiil ka yahay in lagu caawiyo gacan laga geysto maxaa yeelay dugsiyadu waxa jira kuwa burbursan oo sidoo kale ayaguna ka samaysan geed iyo waxaas waana qorshe ballaaran oo la doonayo in ardada iyo dadka wax baranaya diinta Ilaahay baranaya inay helaan goobo ku haboon oo ay wax ku bartaan waxaan insha Allah wareejin doonaa lacagtii yareed ee qidmada aan idin sheegnay lacagtaasi waa $770 ayaa hadda halkan ku haya $12 waxay ku jirtaa EFC ayaan ku haynaa waana tuureynaa adinku u jeeda insha Allah 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 konton 20 waa $770 cadaan hadda ku wareejinaynaa insha Allah $12 EFC ayaan ku haynaa adinku u jeeda macallinka u tuureynaa macallin nagala wareeg lacagtan si aad insha Allah howlaha aad wado aad wax u qabato ilaahay mahadiha ka gaarto inta muslim ah dhamaantood bishaan barakaysan maalinka u dambeeya ee nabigeena kaleey salaatu wasalaam oo dhashay oo la yiraahdo Rabiicul Awwal maalinkii u dambeeyay weeye oo maalinkeedii sodomaad waxa meeshan ka jira sida u jeedin khayr Allah idin siiyo dadkii hadiyadan la soo baxay yaan ilaahay uga mahad celinaynaa marka hore ilaahay baa shay dhamaantiis ku mahadsan waxaan haddana uga ducaynaynaa dadkii la baxay sadaqada jaariyada ah insha Allah ta'ala sida hadda uu sheegay daariyare waxay nagu yimaadeen halkaan sanad ka hor waxay nagu yimaadeen madrasadan dhexdeeda madrasadan markana la kugu imaanahay cidna ma aynaan wacan oo inay noo yimaadeen oo aan dad ku toogsano oo dad ku bareno barnaamij ah ugu ma aanan yeeran
maadaama ay dad deegaanka yihiin bay waxay ogaadeen dugsiyada deegaanka ka jira duruufaha ka jira sidaa darteed bay ugu yimaadeen ma ahan dugsigan kale ah mu'assasadan معلمكني قالق أها في الصومال مشهور كأها معلم أحمد جمعالة رضي الله عنه وأرضاه مدارستي وويناد متكم إضاوي حنو قام هذا علينا إن داتك صدقات عن لبحي وحي أذن كإذن نقانا يسا كالسوني وحي أذن نقانا يسا ماشي وحليدين ويدي إن وحيكو بحا هيان أو دار كيسان haddii qofkii banu aadam oo islaam ah ee wax sadaqaysanaya way u furan yahay akoonkaas dad akhyaar ah oo culimaa u diin ah baa furay akoonkaas wakiil bay nooga yihiin waxayna soo gaarsiiyaan annaguna waxaan wakiil idinkaga nahay wixii muslim wax sadaqaysta inaynaan dana shakhsi u iilin inaynaan u iilin wax aan ahayn madaarisul qur'aan way maadsan yihiin dhalinyaradina soo gaarsiisay waxay soo gaarsiiyeen hadda $770 oo lacag ah oo kaash ah $12 iyo maxaa tiri tan kale $12 na EFC baan ku haynaa bay yiraahdeen wayna ku ayagana ilaahay agtimaada waa ka gaarto dadkii wax sadaqaystayna ilaahay agtimaada waa ka gaarto insha Allah ta'ala barnaamijkan haddaad adinku wax samaysaana waan idinku daraynaa haddaadnan samayna ma joojinayno insha Allah ta'ala $12 ayaan insha Allah hadda aan macalinka u tuuraa oo lacagta ka dhimaneed إلى يرهدو إيش مع الأمريكا شنتي لا طبعا يشن كنتن يصدح نبي $8 ما تنتهي وانا نبي $8 وقطوري $700 يدبات نجعنتو كويا أساس بعد كنت لعقته $700 وعلى سعة العق سنتيال أو لحدا يشن سنتيال سعتي wax yar waayo dhuruq waxay ku hartay lacagta akoonka waxa soo qoraysa anaga dhamma aan soo bixin marka sidaas aan hadda waxa macalinka ugu wareejinay $782 waxaan rabnaa inaan kugu darno insha Allah qof walba oo doonayo inuu la baxo sadaqo oo goobtan quraanka Ilaahay lagu baranayo inuu caawiyo rabo waxaan ballan qaadaynaa sida hadda u jeedaan si waadax ah wixii aad soo gashataan akoonkaas al-ihsaan oo lagu caawinayo guud ahaan madrasada ama dugsiyaasha hoostaga معلمك أما قابيه دسياش هوست معلم أحمد جمعالة وهذا وكيل معلم عبد النور لقو عاوني دسياش ضمان إن سنانو كلا أوري شنو وقابيه أقول تلقى الشيء إن شاء الله وأدينكو أركيا إن نجارسينه سيدا معلمكو الشجنا عن حتى الله استعمالا وحيابها كلا وحياها كلا ومدة كده حياة لكن لقو عاوني أو لقو تغيير دسياشاس اسمياشو ده يسيدا أيها كور لقو قادي لها نقول سيدا إن شاء الله نوجسو ديبتان أيها إن شاء الله أوجد بدو الناس سيدا حد بقى كم مقطع وحمرك ربنا عايزين شغل نقف والبا أو إلهي حول ديبي أو وحلب حياة inuu goobtaan iyo goobaha kale ee Ilaahay kalaamkiisa lagu baranayo inuu caawiyo oo uu gacan siiyo si maalinta qiyaamaha ay ugu noqoto wax uu ku fakado oo Ilaahay hortiis uu la tago oo miisaankiisa xasanaadka u fuusha inuu sadaqada iyo wax uu haysto wax ka bixiyo oo dadkaas iyo dugsiyaashaas halka oo meesha ugu haboon in wax lagu bixiyo oo kalaamka Ilaahay goobta lagu baranayay inuu caawiyo oo gacan ka geysto si asagana ay ugu noqoto wax uu bari ku fakado maxaa yeelay maantana waa adduunyo birna waa aakhiro xoolaha ah haysatana waxa laga yaabaa inay aad ka dhimato oo ay wax waaye xitaa meel aan ku haboonay inay bari kaga baxaan adigu wax waaye markaas gacanta ku hayn marka inta aan nooshahay si Ilaahay oo khayr badan ku siiyo oo waxa wana kugu barakoobaan aakhirana aad wax wanaagsan iyo khayr aad u hesho waa inaad caawisaa goobtan meesha ugu haboon in la caawiyo oo halkii Ilaahay kalaamkiisa lagu baranayay waxaan rabaa insha Allah guud ahaan inaan u mahad celiyo dadkii lacagtaas la baxay si qaas insha Allah waxaan ugu mahad celiyo walaashay Luul Khaliif oo runtii arrintaani kaalin weyn ka geysatay oo dad badan ayadoo lacag ka soo aruuray dhamaana dadkii la baxay lacagahaas oo halkan ay ku qoran yihiin magacadoodii community ay lacagtu ku qoreed totalkeedii halkaas ay ku qoran tahay insha Allah intaas ayay totalkeedu ku cad yahay guud ahaan dadkaasi halkaas ku qoran oo lacagta la baxay si qaas ah ayaan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay Ilaahay ajar fara badan aan ka siiyo sida aad ugu gurmateen
inaad insha Allah ilaahay kalaamkiisa aad garab istaagtaan oo caawisaan waxaan leeyahay ilaahay maalin aad u baahan tihiin gargaar ayaa insha Allah heli doontaan khayr baan idin rajaynayaa insha Allah waxaan leeyahay intaas ayuu insha Allah nagu ogyahay barnaamijka nagi iyo hawshii halka u nimid khayr badan ayaa idin rajaynayaa sida iyo walaalayaal ammaan Allah